warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay dagaal xoogan oo xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ku dhex maray qaybo kamid ah gobolka Bay ee hoosaga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaana dagaalkani ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay sheegeen dadka deegaanka dagaalkan ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu si gaar ah u dhacay deegaanka Ceeldhuun Adeegow oo qiyaasii 42 kiiloomitir dhanka waqooyi galbeed ka xiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sidoo kalena ah xarunta ku meel gaarka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed sida ay shaacisay Koonfur Galbeed dagaalkan ayaa waxa uu salka ku hayaa buran dhanka dhaqaalaha oo al-shabaab ay ka qaadaan dadka shacabka ee halkaasi ku sugan isla markaana loo yaqaan sakawaadka xubnaha dagaalamaya ayaa waxa soo kala dhex galay isfaam la'aan xoogan kaasi oo keentay in dagaal uu maleeshiyaadka halkaasi ku dhex maro intii la xaqiijiyo xubno badan oo ka tirsan kooxdan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dagaalka halka ay dhaawacun intaasi ka badan yahay waxaana la sheegay in raggan ay ku jiraan amiir caan ka ahaa deegaano ka tirsan gobolka Bay iyo deegaanada Koonfur Galbeed oo dhan wararka intaasi waxay ku sii darayaan in weli xaaladdu ay kacsan tahay isla markaana dhinacyada ay dagaalamayaan oo wadaan abaabul xoogan isla markaana uu ka socdo deegaanka Ceeldhuun Adeegow oo ka tirsan gobolka Bay ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed dhanka kale ma jiro wax hadal oo ka soo baxay kooxda al-shabaab oo ku aadan maleeshiyaadkan dagaalka dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Bay ee koonfurta Soomaaliya si kastaba tan iyo markii uu bilowday dagaalka dhanka al-shabaab waxa sii xoogeysanaya isqaarjinta iyo kala shakiga kooxda dhexdeeda iyadoo ay kooxdu lumisay deegaano badan oo ka tirsan dalka isla markaana ay dhaqaale ka heli jireen inkastoo weli ay meelaha qaar ku qaadaan weerar rogaal celisa